madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa taqaaniinaan ku maleena magac maskiin ma ka aha mindi malablen waa lagu gudi waa kasasiina umalaha farmaajo waa kaseena anako kaseena usna waan ka saa umalaha ma sha Allah haddaba waxaan idin sheegaa madaxweyne walba waxbuu ku casheeyaa waxbuu ku quraacdaa waxbuu ku qadeeyaa dhayle jeeni hani اللهم استعان maxaan ku dhahaa bira idaad wajigood waa nuura markino ma sha Allah okay farmaajo ayaa waxa faaliyaha qaranka u weydiyay madaxweyne maxaad ku cashaysaa cashadaada maxay tahay maadaama madaxweynihii wadanka aad tahay awadi maxaad farmaajo wuxuu ku jawaabi idinka arki doona ilaa foolka taala daawasho wacan بسم الله الرحمن الرحيم دقدر جو ما حسنت هاي runtii inta badan interviewada ama waraysiga aan bixiyo inta badan wuxuu badan yihiin mid siyaasadeed laakiin hadaa tiri arrimaha bulshada kulay ma garanayo waxa soo wado laakiin waa sugeynaa news aashada waa kasi adkaanaysa marmar ka dambaysa mas'uul hadaa tahay waa ku celinaya mas'uul hadaa tahay dadka waxay ku nool yihiin ay cunaan ka wax ka wanaagsan wax xaraan ma cuni kartid dadka ay mas'uulka ka tahay waa inay og tahay waxay awoodaan waa sax madaxdu way cuni karaan oo positionkii way joogaan inay cunaan Soomaali waxaan oran jirnay Brimo iyo Sugunta iyo Terso dhaylo iyo wax alla wixii maaragtay cuntaa oo wanaagsan laakiin anigu markaan joogay meesha waxaan ogaa dadku inay cuni kareen wixii wax cuni kara digirta ama cambuulada wax la yiraahdo marka aad waxaan u cuni jiray cambuulada dadka ila shaqeeyana waa weydiin kartaa ay ma arkino cambuulo lagu casheeyo ya cambuulo ma sha Allah wadani farmaajo ma hal eri waay awadi ina socono hal eri malo waay wallahi malo waaynin farmaajo ma hal malay yumbi dhan loo waay loo dudugo wallahi malo waaynin farmaajo ma dhayla loo waay hal eri yar oo 3 jir oo san intaas ka bilaawa cunugiis inta madaxweyneyalka adduunka saas waay cambuulan ku casheeya asiri cambuulo waa wadani farmaajona waa wadani asigoo wax walba heli karo ayuu haddana wuxuu yiri aan jeclaaday inaan ku casheeyo cambuulo maadaama shicibkeyga ay yihiin shicib iska danyar ayaga inay cambuulo cunaan aniga inaan waxaas cuno ilaahay oo unti qofkan saan maxaan dhigi karnaa unuga su'aal labaad ayaa la weydiiyey madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaas ahayd su'aasha labaad ee faaliyaha weydiiyey mudana madaxweyne kursigan dadka ay ku ordayaan lisku dilooyo lisku xamahooyo qaarkooda jinni ugu dhacay kursi le mudana madaxweyne oo kursigan hadii lagu fadhiisto seela naqdaa ilaahay baari waaya macnaa kursiga ma ku khudqteeha macnaa adama khaatmey macnaa see camal waa usmaa beesa dhalaa dusha gadaal jaakada ma soo buuxsamey see kursigan mudana madaxweyne adaan ku weydiiheynaa adaa aabbaha ummadda Soomaaliyeed ah adaa furihii nolosha ah nooga sheekay kursigan markii lagu fadhiista si la naqahaayo iyo waxaad adigu dareentay mar labaad madaxweynaha oo arintaas ka jawaabaya ilaa foolku taala daawasho wacan qofka sidoo arka way aniga waxaan u arkaa kursigaas raaxo ma laha
waa xil waay markaad ku fadhiisato oo aad mas-uul noqoto dembigeeda waa kuu qormaya haddii aadan ammaanada ilaalin haddaadan cadaalad samaynin haddaadan naxariis lahayn marka kursigu waa culus yahay inta badan waaba idhaahdaaba qofka hadduu saddexdaas ahayn inuu kursigaas haweysto ma aha aniga marka mabda ahaan shaqada siyaasadda shaqa hadda aan bilaabay ma ahayn markii la magacaabayay 94tii yaan siyaasadda maraykanka ka qayb galay ilaa heer magaalo degmo ilaa gobol oo xitaa dadkii soomaalida ahaa oo dee qaxootiga ah magaalada yimid aan ku caawiyey in xitaa dowladd iyagoon qaarkood luqadda garanaynin ay dowladdii hoose ama dowladdii dhexe ama dowladdii kale ay shaqo ka helaan aadan kaga mahad celinaa